wasiirada wasaaradaha ganacsiga warshadaha iyo beeraha ayaa safarkadiisa ku yimiday magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley waxayna kulan albaabadu u xidhan yihiin la yeesheen maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley shirkaasi kadib waxay warbaahintu wax ka weydiisay ujeedada dhabta ah ee uu safarkoodana ku salaysnaa waxayna yiraahdeen way sida wasiiradu idin sheegeen horta marka hore waxaan nahay wasiiradii gobolka u dhashay iyagoo mas'uuliyiin qaranahay asalada yara ka baxday mid asala maxay tahay debeerley baynu nahay xoolo markay cunaan siday noqdaan waxa weeye taa inta waxa ii raaca anagu ka hadli mayno qoladan yar ee sheegaysay inaan sharciyad af saddex nin ka hadli mayno saddex ninna dawladda qarankan wax cabsi gelin kara ma aha Gabileyna wax saddex nin ku dhaga taagi kara ma aha haddana gobolkan wuxuu kaga duwan yahay waa gobolkii dalabku ka soo baxay dalka oo dhan quudinay Gabiley inta ka galbeedaysa waxaan filayaa in hore aad iga maqasheen anoo ka hadlaya sanadkan roob yarida taagan sidii xogaga loogu noqonayay xaaladda dadka siday tahay oo sidii abaartii daba dheer ee hore inoo soo martay qaarkiin malaha markaa may dhalanine aynaan ku baraarugin oo dad xilli dadkii aw dhimanayo aasi aanu u nimid warshadu buu sheegay waxaan u soconay waxay xaaladda abaareed ee baahsan ee dalka ka jirta runtii wasiirka beeruhu horena sidoo kale mar warbaahintu wax ka weydiisay in safarkoodani la xidhiidho sas ay xukuumaddu ka qabto wasiirkii hore wasaaradda maaliyadda mudane Cabdicasiis Maxamed Samaale ayaa waxay ku jawaabeen saacad wasiir haddii aan soo gaabiyo su'aashayda iyadoo bulshada badankeedu ee safarkiina ay u malaynayaan in xukuumaddu sas ka qaatay socdaalkii Cabdicasiis Maxamed Samaale wasiirkii hore maaliyadda ma ku jira ajandayaasha ka hadasheen arrintaas ma la xiriirto sidii aga bar hore in horta dhamaysanna horta aad buu mahadsan yahay dee wariyo xaq buu leeyahay inuu su'aal la weydiiyo waana runtii laga jawaabi doonaa kulley waddanku sharci buu leeyahay iyadoo su'aashaadaas uun dee aan ka jawaabayo ajandaha iyaga waddanku sharci buu leeyahay كل أجندها وارني شيء وأواره كذا عاي قبلي يسامين تو ضايشين يسدي لوجو ما ركتي قيمين لو سمين لها يسدي كرمير لو سمين لها ويوحر تانو كهذين هذه أدنى بس. كنتي كلام بانو يهلناي الباب وحريهين قالوا وسارد أي وسيرة ككلا الصعدان وسردها ككلا الصعدان وسيرة أسي يوم عمل كي قبل كي يدق بانو قوة هلناي. runtii gobolka Gabiley waxaynu ognahay inuu ka mid yahay gobolada ugu daran ee abaarta baahsan ka jirto waana gobollo badan oo dalka la wadaagin runtii waxaynu ognahay in xisbiyada qaranku ay ku dhawaaqeen qaarkood oo leeyihiin 27 bisha wixii ka dambeeya dawladdu kama jirto dalka runtaas waa arrin lafjab ku ah qaranka Soomaaliland iyo muwaadiniintiisaba markaynu leenahay dalka dawladdu kama jirto waxay la mid noqonaysaa meelaha nidaam iyo kala dambeyn jirin taas waxayna dhaxal siinaysaa in qof walba wuxuu doono uu sameeyo oo sharciga meesha uu ka baxo hadayna waxay ahayd in wax la iska weydiiyo xaaladda abaarta ee ka jirta gobolka Gabiley oo runtii muddo soo jiitay roobkii guuga oo habsaamay dib u dhacay daraadeed gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani ee gobolka Gabiley Maxamed Nuur Mooge oo ku magac dheer Shabeel ayaa jawaab adag ka bixiyay hadalkan ka soo yeeray wasiirka beeraha Soomaaliland waxaanu yiri Bismillahir Rahmaanir Rahiim waxaan jecelahay inaan kelmad ka yiraahdo oo u jawaabo wasiirka beeraha inuu daahir oo xisbiga ballaaran ee wadani ee mucaaradka ku tilmaamay asalo marka hore waxaan leeyahay asala maaha mana tabaaqilin waa beer baxday oo israacday waxa kale oo leeyahay way isbarteen Cabdicasiis iyo dawladdu adigana waxaan jaanis waliba ku siinanaa intaad isbaranasaan adiga iyo dawladdu Bismillahir Rahmaanir Rahiim wanaga iyo umadeeda abaarta laga dulqaad abaartu cid kale maaha abaartu waa kuwa qodob wasiirada imdow iyaga abaartaas wata dulmi badan bay galeen magaalada Gabiley waa ogtahay 400 oo milyan baa ciiraysa magaaladaas ninku markuu shalay imday soo bilaa hantiya hadduu inaad xilka ka tago soo maanta hanti leh oo guriyay
ma dulmi ka weyn baa jira shantan wasiiroo la isku daro waxa kaga taageero badnaa wasiirkii la bedelay gobolka Cabdicasiis Samaale si kastaba ahaatee safarkan kadiska ee wasiirada gobolkan ugu jira xukuumadda dhexe ay ku yimaadeen ayaa la xidhiidha kadib markii dhowaan wasiirkii hore wasaaradda maaliyadda mudane Cabdicasiis Maxamed Samaale uu yimiday magaalada Gabiley halkaas oo kulamo la qaatay odayaasha aqoon-yahanka iyo waliba dhalinyarada gobolka Gabiley halka dhowaan la sugayo inuu qabsoomo shir weyn oo taageero loogu muujinayo musharaxnimada jagada madaxweyne ee Cabdicasiis Maxamed Samaale uu shaaciyay dhowaan inuu u taagan yahay musharaxa jagada madaxtinimo ee xisbiga kulmiye waa Cabdirasaaq Axmed Hayaalilka Case